السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن وناكسن داوديال كسو دوادا wararka waxayna socodsiinayaan anigu ah Maxamed Cabdirashiid qodobada wararkeena ugu door korona waxa kamid ah hadalhayn xoogan oo ka dhalatay booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ee Norway xog cusub ayaan idinkaga haynaa gudoomiye Muudey oo dalka dib ugu soo laabtay dowlad siyaasadeedna ka sameeyay garoonka aadan cadde xilli mooshin xoogan laga diyaariyay dawladda Soomaaliya oo xil cusub u magacawday fanaanka loo yaqaan Nimcaan Hilaac xilli ay Somaliland baadi goobayso intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon haatan asagii fidsan waa maalinimo Talaado taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha 6 2019 kusoo dhawaada warka iyadoo shalay ay safar gaaban ku timid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalka Norway Maria Eriksson ayaa waxaa durba soo ifbaxaya su'aalo ku saabsan safarkeeda muddadii ay ku sugneen magaalada Muqdisho waxa ay kulamo la qaadatay madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya sida ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku-xigeenkiisa iyo wasiirro kale inkastoo aan la soo bandhigin qodobada dhabta ah ee isla soo qaadeen haddana qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo mashaariicda ay Norway ka fulinayso Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay in Soomaaliya qayb ka tahay ajendaha looga hadlayo madasha Oslo Forum ee toddobaadkan soo socda ka furmaya Maria Eriksson ayaa ka hor inta aysan Muqdisho soo gaareen waxa ay soo martay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ay kulamo kula yeelatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya Monica Juma haweeneydan ayaa diyaaradii shalay keentay Muqdisho waxay ahayd diyaaradda 540 oo laga leeyahay dalka Kenya waxaa soo baxaya shaki ku saabsan in safarkeeda uu qayb ka ahaa arinta xiisadda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan muranka dhinaca bad qayb ahaan Norway ku leedahay maadaama shirkadda laga leeyahay dalkeeda ay shahamin ku sameysay dhulka badda ee sheeganaysa Kenya sidoo kale waxay muddo ku riixaysay Kenya dhulka badda in la rumaysan yahay in shidaal ku jiro dawladda Norway ayaa u muuqata mid xilligan ciyaaraysa doorka ay horey ugu lahayd Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay in muddo ay isha ku haysay arrimaha shidaalka Soomaaliya waxaana socdaalkeeda Muqdisho ku soo aadaya toddobaadyo kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay sharciga batroolka dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii maalmo uu dalka ka maqnaa Muudey ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee maanta lagu soo dhaweeyay isla markaasna waxa uu ka warbixiyay socdaalkiisa uu ku tagay dalka Turkiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya ololaha mooshinka laga diyaarinayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey waxaana socda kulamo ay leeyihiin xildhibaanada mooshinka wada fanaanka caanka ee loo yaqaan Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa maanta loo magacaabay xil cusub kadib wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Maareeye wareegtadan ayaa Nimcaan Cabdiraxmaan loogu magacaabay agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta gobolada Waaberi waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Xasan Barrow wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta oo xilka looga qaaday agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta gobolada Waaberi ayaa sidoo kale Maxamed Xasan Barrow loogu magacaabay taliyaha wasiirka ee arrimaha horumarinta fanka fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa kamid ah fanaaniinta da'da ee soo caanbaxay sanadihii ugu dambeeyay fanaanka oo isaga soo tagay magaalada Hargeysa oo ku noolaa kadib cadaadis xoogan oo uu kala kulmay maamulka Somaliland wuxuu ka mid yahay fanaaniinta loogu taageero badan yahay dalka isagoo leh dabeecad wanaagsan daawadayaal waad ku mahadsantiin daawashada wararkeena iyo warbixinadeena fadlan la soco wararkeena xiga haddii Allahu yiraahdo subscribe deh kambalkana furo